السلام الله عليكم halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadaha soo socda ku dhawaaqay ra'iisul wasaarihiisa iyo kulamadii ugu dambeeyay oo ka dhacay filan Soomaaliya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya oo heshiis rasmi ah gaaray iyo diyaaradihii qaadka oo si toos ah loo fasaxayo saacadaha soo socda Fahad Yaasiin oo ka carooday milkiilaha dawladda in loogu yeero dadka Soomaaliyeedna codsi u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo casuumaad rasmi ah ka helay dalka Turkiga iyo arrimaha xasaasi oo ay ka wada hadlayaan beesha caalamka oo cambaaraysa qalalaasa siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland qodobadaas iyo qodobo kale oo daahson ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba waxaan daawadayaal meel walba aad joogtaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato ama ogaana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu qaato saacadaha soo aadan go'aanka ku saabsan cidda uu ka dhigay ra'iisul wasaaraha dalka ayadoo maalinkii shalay hadla caleema saaray ayuu tan iyo xalay wada kulamo gooni oo looga hadlayay qofka laga dhigay ra'iisul wasaaraha dalka filan Soomaaliyana waxa la soo wariyay in Ameerika xalay ay wajahday mashquulkii ugu badnaa oo ku saabsan xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dalabyo kala duwan u gudbiyay taasoo la xiriirta ra'iisul wasaaraha dalka iyo qofka laga dhigayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu dhageystay aragtiyadii ugu dambeysay ee soo jeedimaha siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan beesha uu ka imaanayo ra'iisul wasaaraha dhinacyo kala duwan ayaa la sheegay inay isku hardinayaan xilka balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo wariyay inuu dadaal xoogan ugu jiro sidoo uu qaadan lahaa mowqif u gaar ah isla markaasna uu ka dhax saarayo aragtiyada kale asagoo ku dhawaaqaya ra'iisul wasaaraha dalka hogaamin doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo wariyay in go'aamadii ugu dambeeyay iyo qorshayaashii ugu dambeeyay ee uu iminka ka fakarayo inay yihiin magacaabitaanka ra'iisul wasaaraha dalka isla markaasna ujeedka ugu weyn ee uu doonayo ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dalku u yeesho ra'iisul wasaare cusub kaas oo looga baahan yahay kadibna inuu soo dhiso xukuumad si rasmi ah uga shaqeysa horumarinta iyo amniga guud ee wadanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadaalada socda ee soo magacaabitaanka ra'iisul wasaaraha saacadihii ugu dambeysay waxa la soo wariyay in ay kordheen kulamada la xiriira xilka ra'iisul wasaaraha dalka madaxda Puntland iyo Jubbaland oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka dalbanaya in ra'iisul wasaaraha laga dhigo shakhsi ay ku qanacsan yihiin dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa gaaray heshiis rasmi ah oo lagu fasaxayo qaadkii Kenya ee xayirnaa iyo labada wadan oo si rasmi ah u wada shaqeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo welinaya ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa la soo wariyay in kulan la qaateen dalka Kenya wafdiga ka socday oo uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Kenya Mr Uhuru Kenyatta kuwaas oo ka qayb galay munaasabada caleema saarka ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu caleema saaray madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulanka sidoo kale waxa goobjoog ah hay'adaha duulista hawada iyo sidoo kale socdaalka Soomaaliya iyo Kenya dhinacyada kala duwan ayaa isla faaqiday sida muhiim u tahay in si rasmi ah loo soo celiyo xiriirkii joogtada ah ee wanaagsan ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxaana la soo wariyay in la isla qaatay in saacadaha iyo maalmaha soo socda si rasmi ah loo dhaqan geliyo heshiiska wada shaqeynta labada dal oo ay ugu horeyso in dib loo fasaxo qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya ee lacagaha fara badan ay ka soo gali jireen dawladda Kenya iyo qaar ka mid ah ganacsatada dalkaasi ku sugan ee Soomaaliyeed ee qaadka soo dhoofiya wararka iyo macluumaadka ayaa sheegaya in labada dal ay isla go'aansadeen in Kenya ay qaado culaabo dhowr oo ay ku haysay dawladda Soomaaliya halka Soomaaliya ay fasaxi doonto qorshaha Kenya ay ka leedahay Soomaaliya ganacsiga qaadka oo muhiim u ah iyo il dhaqaale dawladda wadankaasi Kenya horey waxa loo xayiray qaadka ka imaan jiray dalka Kenya iyadoo la soo daayay midka Itoobiya talaabadaas oo ay qaaday dawladii horeete ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay inay ahayd arrintaasi talaabo ay dawladdaasi ugu eexatay dhinaca Itoobiya oo ay doonaysay in Itoobiya ay dhaqaale ka samayso Fahad Yaasiin Xaaji Daahir milkilihii 5 sano ee la soo dhaafay dawladda
kaasoo dadka badan ay ugu yeeri jireen Soomaaliyeed inuu milkilay ka yahay dawladda ayaa markii ugu horeysay sheegay inuu ka xumaado hadallada qaarkood. Fahad Yaasin waxa uu sheegay in dawladda Farmaajo uusan milkila ka ahayn balse uu ka ahaa shaqaale u adeega madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Fahad Yaasin waxa uu sheegay in Farmaajo soo saaristiisa uu qayb ka ahaa balse aysan jirin wax milkile la yiraahdo oo uu ka ahaa dawladda, isagoo sheegay in dawladda uu la soo shaqeeyay oo uu shaqaale u ahaa waxaana uga mahad celiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya inuu magacaabay xilal dhowr oo ay ka mid tahay agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha. Fahad Yaasin waxa uu sheegay in uu aad u dhibsado markii uu maqlo milkiilaha dawladda, taas oo uu sheegay inay tahay eray ku xun dawladnimada Soomaaliya loona adeegsan karin dawladda federaalka Soomaaliya oo ay tahay dawladda waxa dadka ka dhaxeeya. Fahad Yaasin waxa uu sheegay inuu ka madax banaanaa tallaabooyinkii dawladdu qaaday oo uu shaqaale ka ahaa balse go'aanka uu qaadanayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya, taas oo u muuqday Fahad Yaasin inuu iskaga leexinayo eedeymaha badan ee loo jeedinayo ee ku saabsan inuu qayb weyn ka ahaa dandarooyin iyo dhibaatooyin ay geysatay dawladda federaalka Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay ee Farmaajo iyo Fahad Yaasin ay hoggaanka u hayeen. Fahad Yaasin waxa uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qayb weyn ka ahaa soo saaristiisa, hase ahaatee uu dawladdiisa shaqaale ka ahaa oo uusan jirin meel qof Soomaaliya uu ku noqon karo milkiilaha dawladda. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaadii ugu horeysay ka helay dal ka mid ah kuwa Soomaaliya sida weyn u taageera. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaad ka helay dhigiisa wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaas oo ku marti qaaday wadanka Turkiga inuu booqdo Xasan Sheekh kadibna labada wadan ay ka wada hadlaan arrimaha muhiimka u ah dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya. wararkii macluumaadyadu waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu wasiirkiisa beeraha u soo wakiishay inuu casuumaad u fidiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. casuumaadaas oo maalinkii shalay ahayd la soo gaarsiiyay madaxweynaha cusub ee dalka laguna casuumay in booqashada ugu horeysa uu ku tago wadanka Turkiga Soomaaliya wuxuu ka taageeraa arrimo dhowr ah sida horumarinta iyo dhismayaasha hay'adaha amniga sida tababaritaanka ciidamada, qalabsiinta iyo kabka miisaaniyadda dawladda Turkiga waxay isku aragtaa inay muhiim u tahay jiritaanka Soomaaliya iyo dhiska dawladnimada Soomaaliya oo ay sheegtay inay tahay mid muhiim ah in dhinacyada oo dhan ay door muhiim ah ka qaataan. dawladda Turkiga waxa la sheegay in sanadihii ugu dambeysay cilaaqaad dawla ay la lahayd madaxweyne Farmaajo, waxaana iminka u bilaabanaya bog cusub oo ay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kula tacaamulayso. beesha caalamka ayaa cambaaraysay qalalaasa siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. beesha caalamka ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha ku saabsan qalalaasaha ka taagan doorashooyinka Somaliland. xubnaha beesha caalamka maamulka Somaliland ka taageera doorashooyinka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda ayaa war ay soo saareen waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda Somaliland iyo qalalaasihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Hargeysa. beesha caalamku waxay sheegtay inay ka walaacsan yihiin qalalaasihii Hargeysa ka dhacay kadib doodbixii Khamiistii ay sheegeen xisbiyada mucaaradka in qaarkood la xiray halka kuwa kaleetana la dhaawacmay, waxayna ugu baaqeen madaxda Somaliland iyo xisbiyadu inay xakameeyaan xaalka Somaliland. saaxiibada beesha caalamku waxay sheegeen in nidaamka dimuqraadiga iyo qori isku dhiibka iyo doorashooyinka oo la qabtay ay yihiin kuwa muhiim ah. qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxa loogu baaqay dhinacyada siyaasadda Somaliland inay ilaaliyaan nabadgelyada, deganaanshaha, dimuqraadiyadda iyo dhinacyada iyo kala duwan ee wada hadalada iyo sidii Somaliland ay uga dhici lahayd doorasho lagu wada dhan yahay. warkaad ka daawanayseen Dunida TV oo geynta sidaas iyo nabadgelyo.